maalin kasta iyo habeen walba dadku waxay isweydiiyaan waxa dunida ka dhacaya waxayna isa suaalaan tolow aakhiro ayaa loo sii dhow yahay balse haddii jawaabtu haa tahay waaba haa maxay yihiin calaamadaha lagu garanayo su'aalahaasi waxay ahaayeen kuwo in badan ahmiyad gooniya la siiyo udubdhaxaadna u ahaa doodaha dadka haddii wax cusub soo kordhaan ilaa muddo kumanaan sano ah ka hor haddii aad u fiirsato bogagga taariikhda ee ay ka buuxaan qisooyinka dowlado boqortooyooyin soo maray kuwaas oo ahaa qaar haybad u saaxiiba ilaa ay dumeen aakhirkii adduunyadan qisooyinkeedu ay dhammaadaan haddana way soo noqdaan waxaa jira qoom ay dhammaato qisadooda si aan soo noqod lahayn halka kuwa kalena ay ka bilaabato isla halkaas iyaguna maray isla imtixaankii qoladii ka horraysay ay mareen balse haddaynu isweydiino sababta ay u dumeen dowladuhu waa kan caalimkii muslimka ahaa ee ibnu khalduun ka warramaya sanadku markuu ahaa 732 hijriga waafaqsanna sanadkii 1377 miilaadiga yacni 700 oo sannadood ka hor hadda cabdiraxmaan bin maxamed ibnu khalduun al-xadrami al-ishbiili loona yaqaanay ibnu khalduun wuxuu ku dhashay kuna noolaa waddanka tuunus ee ku yaala waqooyiga afrika wuxuu ka jawaabay su'aasha ah sababta ay dalalku burburaan wuuna qoray wuxuuna yidhi markay bataan xidiglayaashu yacni dadka xidigaha ka faaliya dawarsadayaasha bimacnaa kuwa tuugsada munaafiqiinta iyo kuwa xaqa aanay lahayn sheeganaya iyo kuwa wax qora kuwa heesa iyo sidoo kale kuwa gabya ayna soo muuqdaan dadka inta caydha ahi iyo kuwa ka faaliya marka alaabtu lunto ayna soo muuqdaan kuwa akhriya calaacasha ama gacanta iyo kuwa ka faaliya dhacdooyinka cayiman ayna soo baxaan siyaasiyiin aan wax khibrad ah u lahayn siyaasadda ayna bataan kuwa aad wax u ammaana kuwa aad wax u caaya socotada iyo danaystayaasha marka burburka wadamadu soo dhowaada waxa dadka hareeya cabsida iyo baqdinta waxayna u qaybsamaan oo naf moodaan kooxaysiga iyo firqooyinka waxaa soo daahira cajaa'ibta waxaana faafa hadallada propagandada ah wuxuuna isu beddelaa saaxiibku cadow waxaana awood yeesha baadilka waxaana daciifa awoodda xaqa waxaana bannaanka u soo baxa wejiyo shaki leh oo aan hore loo aqoon waxaana qarsooman wejiyadii la yaqaanay waxaana yaraada riyadii iyo hamigii dadku lahaa waxaana dhinta rajadii qurbadii ama ka fogaanshihii dadka caqliga u saaxiibka ah ayaa siyaada waxay arkayaan aawadood waxaana isbeddela raadadkii wejiyada ku abtirsiga iyo sheegashada qabiilka ayaa noqonaya mid ka badan ku abtirsiga waddamada kuwa xikmadda u saaxiibka ah codkoodu wuxuu ku dhex lumayaa sawaxanka khudabada ama kuwa khudbadaynaya waxaa sii badanaya sii qaaligaraynta qiimaha badeecadda sidoo kalena uu ka saramaro fahamka wadaniyadu kan caqliyadda iyo diinta waxayna isku eedeynayaan dadkii isku guriga ahaa calooshoodu shaqaysinimo iyo khiyaano waxaana la maleegayaa dhagar iyo mu'aamarado waxaana badata nasteexada ka imanaysa mid ka dhow iyo ka fogba waxaana ka dhow iyo ka fogiba keenayaan qorshaha xalka ah qofkii awood u leh maaraynta tegiddiisa ama bixidiisa wuxuu maaraynayaa tiisa maalqabeenkuna wuxuu maaraynayaa hantidiisa qof kastana wuxuu noqonayaa mid feejigan oo heegan ku jira xaaladdan waxay isu beddelaysaa xaalad muhaajirnimo ama soo galootinimo waddankii hooyana wuxuu noqonayaa goob ay ku nastaan dadka safarka ahi guryihiina waxay noqonayaan xasuus keliya xasuusahaasina waxay noqonayaan sheekooyin lagu sheekaysto wixii uu ibnu khalduun sheegay 700 oo sano ka hor ayaa hadda si dhab ah u dhacay qarnigan 21aad maanta waxaad arkaysaa faaliyayaal kuwaas oo qabsaday shaashadaha TV-ga warbaahinta iyo shabakadaha bulshada waliba bilowga sanadka cusub kuwaasoo ku tartamaya filashadooda xaaladaha dadka shakhsiyaadka muhiimka ah wadamada siyaasadda dhaqaalaha iyo waliba goobo kale fara badan waliba maxaa ka fara badan ayaamahan waxaanad arkaysaa waliba shaarici iyo wadooyinkii dad tuugsanaya iyo qaar kaloo derbi jiifa oo carruur iyo dumarna ay ka mid yihiin sidoo kale waxaynu markhaati ka wadanahay badnaanshaha heesaha kuwaasoo safka hore kaga jira barnaamijyada malaayiinka doolar soo xareeya
iyadoo dadkii caamada ahaana kusii qulqulayaan iyagoo ka raadinaya caannimo. waxaad moodaa in ibnu khalduun uu hadda inala jooga uuna arkay oo uu maqlay wixii uu qoray 700 oo sano ka hor. waxa maanta dhacaya ee dhiba ee ay shucuubtu la ildaran yihiin sida dhibta guryo la'aanta, gaadiid xumida iyo shaqo la'aanta iyo maciishada iyo qaali noqotay. bal xitaa jirada dadkii caqliga lahaa ee loo baahnaa in laga faa'iidaysto iyo fasahaadida shaqaalihii iyo mas-uuliyiintiiba. waxaasoo dhani maaha ka digid iyo hordhac tusaya burburka dowladaha mooye. mararka dalalku burburayaan cadowguna wuxuu noqonayaa saaxiibkuna cadow. waxaana loo ogolaanayaa cadowga inay fiisa la'aan ku galaan waddanka. loomana ogolaanayo waddamo isku diina isku luqadna ku hadla inuu waddankaas galo kadib markuu shuruudo culculus fuliyo mooye. waxaad moodaa in laynoo maleegay shirqoollo xeeladaysan taasoo innaga la isukaan adeegsaday. aynuna isu nahay cadowga isugu daran innagoo ku jirna dagaalla ku salaysan isir iyo qowmiyad, taasoo saaxiibadii u beddeshay laba cadow oo aan is arki karin. marka ay dowladuhu burburaan waxaa bata muhaajiriinta iyo dadka magangelya doonka, kuwaasoo ka cararaya musiibada dagaalka, dulmiga iyo cadaalad darrada. marka ay dowladuhu burburaan waddamadu waxay noqdaan goobo laga safro, guryuhuna boorsooyinkii safarka. riyada ugu weynina waxay noqotaa in la helo meel nabdoon oo lagu noolaado gaajo la'aan. intaasoo dhan kadib maanta maynaan ku jirin xaaladahaas burburka ah. tusaalena waxaa kuugu filan Suuriya, Yemen, Liibiya iyo Soomaaliyaba iyo goobo badan oo kale. taariikhdu waa meerto, dhacdooyinkii shalayna way soo noqonayaan. waxayna erayadan koobani ahaayeen hordhaca buugga uu qoray ibnu khalduun ee ahaa كتاب العبر والديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. kaasoo kaga warramay xaaladaha aadanaha iyo saamaynta uu deegaanku ku leeyahay, qaabka dowladuhu u aasaasmaan iyo qaabkay u dumaan. wuxuuna ku caddeeyay khatarta ay kala qoqobka iyo kala kooxaysigu uu ku leeyahay bulshada iyo diintaba. waana arrinka ka jira imika Ciraaq kadib duulaankii Maraykanka iyo burburkii dowladda dalkaasi, taasoo horena uga dhacday Lubnaan. waana xaalka Yemen, Suuriya iyo Liibiya iyo Soomaaliyaba. miyaanay ahayn faahfaahin cad oo ah hadalkii uu ibnu khalduun sii sheegay 700 oo sano ka hor? sidoo kale miyuuna ahayn casrigan aynu noolnahay casrigii rasmiga ahaa ee dumida dowladaha? Mm-hmm.